Walaalayaal maanta waxaynu ka hadli doonaa 5 hab oo lacagta loo maamulo. Lacagtu waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee nolosheena loo baahan yahay inaynu maareyno. Waayo haddaynu dakhligeena soo gala maamuli weyno, waxa dhacaya dakhli burbur inaynu waxyaabo badan oo nolosha aasaasigeeda ah aynu awoodi weyno. Haddaba waxaan u baahanay 5 qodob inaynu samaysano personal budget oo aanu kicin dhaqaale burbur oo aanu u kala badanin dakhligaaga iyo kharashaadkaaga. Waayo dakhligaaga iyo kharashaadkaaga hadday kala bataan waxa dhacaysa dhib ballaaran kaasoo ah dhaqaalaha gebi ahaanba inuu burburo. Qodobka labaad waa inaad qortid kharashaadkaaga kaa baxa oo aad ogaatid dhaqaalaha kusoo galay meeshuu ku baxo. Haddaad garan weydo dhaqaalaha kusoo galay meeshuu ku baxo, taas waa problem weyn oo ah mid aad kasoo kabsan weydo noloshaada. Waayo income-ka iyo expenses-ku hadday kala bataan waxay ka dhigan tahay haddii imika kharashaadkaaga uu bato income-kaaguna yar yahay, waxaa kugu dhacaysa inaanad maareyn kari weydo caqabadaha nolosha kusoo wajahaya iyo inaad ay kala bataan oo bil kasta oo dhacdaba aad ku jirtid deyn. Deynkuna waxa uu noqonayaa mid aanad nolosha horumar uga sameynayn si aad markasta waxaad ku jiraysaa sida deynkaa isaga bixin lahayd. Qofku hadduu deyn bil kasta ku jiro dhaqaalihiisu kor uma kici karaba. Waayo qofkii already lacag baa laga rabaa, noloshana horumar kamaba gaari kartidba. Waayo dakhligaagii baa hoos u dhac ku imanaya markastaba. Walaalayaal qofka waxa ku waajibay inuu iska ilaaliyo. Qodobka 3aad waa inaad ogaatid siday lacagtu kuu soo galayso, meelaha ay kaa soo galayso, ama mushaharkaaga ha noqdo ama ganacsigaaga ha noqdo oo aad saadaalinayso. Tusaale ahaan ganacsiga waxaad saadaalin kartaa intuu sanadkii ama bishii kusoo galaysa. Markaas waxaad ku xisaabtamaysaa kharashaadkaaga income-ka kusoo galaya walaal sidaad u maareysid waa muhiim inaad sidaa yeeshid. Qodobka 4 wuxuu noqonayaa inaad samaysato dhaqaalaha xaaladaha degdega ah. Lacag yar oo aad ugu talagashay xaaladaha caafimaadka, xaafadda, family-ga ama qof dhibkii uu soo wajaho xaafadiina ah. Waxay kaa saacidaysaa inaad qorshe kugu jirto oo aad dhib ka xallin kartid markay dhacdo. Haddaba qodobka 5aad waa inaad dhaqaale kaydsato kan ugu muhiimsan oo ah kan noloshaada mustaqbalka wax ka bedeli kara. Qofku haddaanu dhaqaale kaydsan waxay ka dhigan tahay noloshiisa dambe ama haddii maanta uu ganacsigiisaas ama mushaharkii ama shaqada laga eriyo inuu halkaa dhibaato kasoo gaaro. Qofku haddii uu dhaqaale kaydsado wuxuu samaysan karaa ganacsi kale, maalgelin buu samayn karaa. Kaas waxay ka saacidaysaa inuu dhaqaalihiisu kor u kaco. Qofku hadduuna dhaqaale kaydsan waxay ka dhigan tahay inaanu nolosha dambe wax ugu talagelinba. Waana mid muhiim ah qof kastaaba inuu noloshiisa dambe ka fikiro.